marka duqyaanku waxa weeye xukunku marba hadduu sameeyay xukun Allah oo qofka xaakimka oo dadka hogaaminaya oo dadku ay umurahooda u dhigteen taladooda u dhigteen hadduusan baahan mid hoggaansan oo isagu abdi hadduusan ahayn hoggaansan oo alla amarkiisa kaliya ku socda taaquud baa la yiraahdaa oo min wuxuu noqonayaa isagu awoodii gacantiisa soo gashay oo dadkaas oo dhan markuu isagu u talinayo oo maalkooda iyo naftooda ka talinaya awood badan buu yeelanaya awoodda waxa noqonaysa mid uu ra'yigiisa haweenkiisa ku hogaaminayo noqonaysa wuxuu doono dilaya wuxuu doono deynaya wuxuu doono qaadanaya wuxuu noqonayaa mid sidaysan macnaha wuxuu doono sameeynaya istaad ma wala imaanaya cadaalad la heli maayo oo cadaaladdu waxay ka timaadaa aayadaha Allah oo marada la raaco mar hadduu soo aayadaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala in celinay cadaaladii waa ka fogaanaysaa cadaaladaas uu ka fogaaday baa marka dambe waxay keenaysaa noloshooda inay xumaato inay diridaan inay isla bacaadaan waxa soo dhan baa imaanaya marka islaamka kaliya way meesha cadaalada laga helayo kelmadda Allah kaliya ku taantahay wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan marka adduunka hadda maanta waxa ka dhisan waxa weeye waa xukunkii fircawn oo kale weeye waa dad aayadaha Allah aan maaragtay isku xukumayn kitaabka Ilaahay baan marjic u ahayn ma iyo oranay islaam baan nahay inta waxa weeye salaadkooda aayadaha Ilaahay aan ku xalino ama hal kitaab inuu leenahay kitaabkan soo nimaan hawada la iska daayay halkaas kitaab soo nimaan ma oranaya ma soo qaadayaan aayadaha Allah meel kasta ay ku shiraan adduunka dadka hadda Soomaalida ama markay shirahayaan madaxdooda oo kulan kasta ay qabanayaan ama dawladda ku shiraan ama waddankooda gudihiisa ku shiraan madaxdooda markay isku imaanayaan aayad Ilaahay meesha laba keeno soo mar kitaab la manin kitaabka Ilaahay maxaa uu kala bixi weynay maxaa loo dirirayaa meel xal lahayn Ilaahay kitaabkiisa xal keenay soo diinayaan bal sidii waxaan kitaab lahayn oo kale u dhaqmayaan maxay la kitaabku waa tureen yani sanabaduhu waraa dhuhurihim ku Ilaahay yaro kala weeyay kitaabka dhabarka ka tureen واشتروا به ثمنا قليلا قيمة بكل سلين فبئس ما يشترون فحباس لهذا وحي إبسنهين مركع حكومات كمان تشركوا الإسلام كشيئا كوا كلابا ضواغير ما دام أي شرعاء إلهي حكومين ونك حاكمك أو صناعين من الضوان أهو آيين كفلهين وآياتها كل إستاغي آياتو صناعين طاغوت باليدا ومي حد كيسي داقي سيدي حد كيسو داقي وحد حد كيسو أضل لموها ووحلا أبوري ووحلا إرزاقي إلهي بأبوري إلهي بندلها مدام مسكين وساي الله سبحانه وتعالى كما رمي كريم وعبد مركز فطر أهم وعبد وياه قابك الله أبو ريبا بعضون لماء ومد باهن إلهي روح في سادوسه رفت إلهي دوسه ومد استدمان هاي مدام أسيدها هي مركز إنه يرى أنا قاعد تلينها هي وكون في قيب كم ذا يضبط إلهي أبو رفي قيب كم ذا أتلينها يا أبو يرى حد كيسي ودعف مركز ليك مركز حاكمك أن إلهي أيين سبصان وحو لي أنا قولها حكومي ورنايا قول كنا وحكم ذا يكون في إلهي عالم في إلهي أوري قيب كمدوي حتى هل مجال هذا مجال وحوي عالم في إلهي أوري قيب كمدوي هذا وحوت لنا يا حتى هل قبيله قبيله وحوي عباد الله ويا تومد الله أوري والله إرساقي والله أحمد كل هيوي ومرك الله وصل كمره يا وحلي أنا وحو حلالين وحنا وحرمي الله أنا وحو حلالين وحنا وحرمي بك ولي أنا وحو حلالين وحنا وحرمي وأضد إستجا هرسي إلهي وحو حلالين وحنا وحرمي إلهي سرعي إلهي ومشكل حين هي وحلي أنا قاعد تلين هي أنا شرعتين هي أنا برغين جارتين هي أنا ثلاثة قاعد ورنا باخذ بمرك اللي هذا وأكو أنبياء بنت وير كده لما كفكامت أو ساس وكلا أو دكتور جامعنا دكتور جوياش هو جبابير القرآن كالوير هذا يعني كل جبار عنيد جبابير أو حوالي معاندين ويا أو ضواقيد ويا النبي والبال وير كده ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت النبي والبوح الأخرى كده والطاغوت كسر في هذا لما سألنا أيوة عن إلهي كتاب يكون جامعين كسر في هذا وأصنام كسر في هذا وحول بحكي في ضعف كسر في هذا الورنية فرعون مركا ما دام الضاغوت مغري وحكي في ضعف آد باليري وغنته وشيء إنه أبدون الله